يا أمضى كل الجمهورية الصومالية خاصة وحن سلام يا قبل كتولير مقالة برعو خاصة وحن سلام يا مدحدة جمهورية الصومالية ووريو مدحونا جمهورية الصومالية أحمد محمد سيريو إيو وزير كمان تنقل صغيب قال عبد الظاهر وحقنا كسلام يا والدين تي ويا عاشت وكالة ورسمة وشوكة مقالة جلجية كل كشان الصومالية وحقنا كسلام يا عروس تيدا أو يكون شوكة كشان دلك إثيوبيا قارن مقالة جلجية وحقنا كسلام يا قبل كي كل شيء oo dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Tulliguuleed aniga u dhashay gobolka Togdheer magaalada Burco waxaan ku soo jeedaa dalka Itoobiya gaar ahaan kilka shanaad waxaan ka salaamayaa bahda TV-ga iyo saxaafadda oo runtii ummadda Soomaaliland xadaarad u soo kordhisay ama caalamka u soo kordhisay waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo bahda saxaafadda khaasatan inamada iyo kusoo wanaagsan u daadahinaya haday yihiin on table TV Universal haday yihiin iyo tagarankaba aad iyo aad baan salaamaya iyo haday tahayba Royal iyo janalka Somali janana aad iyo aad baan baastii walaalayaal ciid mubaarak dhammaan dadweynaha reer Burco dadweynaha reer Somaliland iyo booliska jumhuriyadda Somaliland dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad iyo aad ugu faraxsan hadaan taliya qaybta booliska gobolka Togdheer sida nabadgelyada lee wanaagsan ee dadweynuhu ugu ciideen gobolka Togdheer ساس وحنا لنا ساس سنة كسلت كحجنا ساس نبتقليو وقعيد يوم ساس لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيقو حبيبي عبد السلام داير حيسي وحن سلام يدوينا غير برعة سكول كيجا يا أباي يضي ما أنت برتن كسلام يا وحي غير برعة دان. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan dhammaan ummadda muslimiinta waxaan halkan sidoo kale ka salaamayaa xaaskayga aan jecelahay Nimco Maxamed Cabdillaahi eedadeeda qaaliga ugaasa xasan dhammaan ayayday xaawa jaamac asxaabteeda qaaliga Maxamed Muuse Cilmi aadan daawud iyo Cabdillaahi Maxamed Xasan Shakuur Cali Aaro jooga jigjiga Shaambiyo oo isaguna jooga jigjiga iyo dhammaanteeda asxaabteeda waxay muuqayga oo magacayga yaqaana waa aniga oo ah Cabdiwaab Jaamac Xasan ciid mubaarak baan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak salabaad halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday oo aan aad u jeclay iyo dhammaan waalidiintay iyo ummadda reer Burco ayaan aad u salaamayaa ciid mubaarak diraya munaasabadda ciidda ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Somaliland gaar ahaan waxaan xabaliyo u diraya bulshada reer Burco gobolka Togdheer waxaan salaamayaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silayo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ciidamada faranta jooga madaxweynaha hore Somaliland daahiriyaal ka inoo aan leeyahay meel kasta joogtaba xabaliyo ku soo diraya salaam ya si xushmad loo salaamaya ummadda muslimiinta meel kasta joogto waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan kala salaamayaa shacabka Somaliland meel kasta ay joogaanba salaamaya kale aabahay diiday faarax jooga Riyaad waa Sheekh Maxamed Cumar waxaan munaasabadan ciid al-adha ee qaaliga ah ku weyn ummadda muslimiinta dhammaan waxaan jecelahay inaan ka salaamo akhyaartada kala duwan sida ardayda jaamacadda Golis University Burco ninkan Maxamed Alxamdulilah Dalab Fanax Maxamed Xubudi Maxamed Ciise Ibrahim Saciid Faisal Maxamed iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda Alamadan Trading Company Mustafa Ali kamid yahay Axmed Cabdillaahi Axmed Maxamed waxa ka hooseeya dhammaan marnaba ay laga salaamaya hooyaday qaaliga Carfi Sheekh Ciise Caalin caruurteeda xaaskayga iyo walaalahay Khadra Xamdi waxa kale oo aan salaamayaa iyagana dhammaan badbaahda shaqaalaha Somali Channel ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda shacabka Somaliland waxaan leenahay washwash iyo barwaaqo iyo caafimaad ku ciida waxaan salaamayaa dhammaan xerteeda oo dhan waxaan salaamayaa eelka waxaan salaamayaa caruurtayda iyo xaaskayga waxaan salaamayaa dhammaan eheladiida waxaan gaar u salaamayaa nuura maxamuud jaamaciidana oo degan Suudaan waxaan salaamayaa dhammaan ehelka muslimiinta waxaan ugu hambalyeeynaa ciida qaybta media
gaar ahaan jananka Somali Channel oo ah channel ugu firfircoon gobolka Togdheer oo iyaguna iidaha iyo wararka biyo kama dhibcaanka dadka hadii jeer noo soo tabiya waxaan leeyahay ciid mubarak kullu muwaantum baam ilaahay waxaan uga rajaynayaa caafimaad dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan farxad iyo nabadgelyo aniga oo magacaygu waxa weeye wax la yiraahdaa maxamuud maxamed aadan oo kuma dheer shine waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير dadka islaamka meel kasta oo joogaan baa waxaan ku ambaliyanayaa maalinta ciidda ciid al-adha waxaan kaloo runtii aan salaamayaa labadayda waalid aabbahay iyo hooyaday waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga waxaan kaloo salaamayaa carruurtayda waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa bahda saxaafadda oo runtii aan ka mid ahay ayaan ayagana aad u salaamayaa siiba ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda Somali Channel oo maanta naga joogo Maxamed Caawil aad ayaan salaamayaa waxaan kaloo aan salaamayaa runtii meel kasta oo ay joogaan dadka reer Somaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bkhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد القادر وعن سلام دمان dadweynaha ku nool magaalada Burco Somaliland waxaan salaam ya muslimiinta oo dhan waxaan sidoo kale waxaan salaamayaa aabaha iyo qoyskayga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak maanta oo ah munaasabad weyn oo ciidda islaamka ciid al-adha halkan waxaan ka salaamayaa guud ahaan ummadda islaamka taqabbalallahu minna wa minkum waxaan kaloo gaar ahaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda Somaliland waxaan u rajaynayaa khayr baraare barwaaqo iyo raxmad inuu Ilaahay ku waasiyo waxaan kaloo ducaynaynaa dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee abaara iyo colaaduhu ay aafeeyeen iyagana waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada ku habsatay annagana inuu Ilaahay ma waasiyo inta kadib waxaan salaamayaa eheladeyda dhammaantood meel kasta ay joogaan Yurub Soomaaliya Itoobiya annagoo ah shirkadda ka waxaan leenahay ciid wanaagsan marka hore waxaan ku bilaabay magacayga Cabdirashiid Daar Xisiya waxaan salaamayaa qoyskayga oo dhan iyo shacabka Somaliland iyo hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay iyo adeeraday ayaan salaamayaa ciid mubaarak waxaan magacayga leeyahay Al-Ashur Xasan waxaan ka tirsanahay dadweynaha ku nool magaalada Burco gobolka Togdheer munaasabadan ciidda adxada darteed waxaan salaan hawada u marinayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan ummadda reer Somaliland meel kasta joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabteyda iyo qaraabadeyda iyo qoyskayga waxaan leeyahay ciidan ciideed ku gaadho bashbashyo barwaaqo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nooga dhigo ciid aynu barwaaqo iyo bashbash ku ciidno oo dhammaanteen aynu wada mahadino waa mahadsantahay salaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalih al-a'maal waxaan leeyahay ciidda wax ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo ilaahay naga aqbalo عماشة الصبر أن نسمعنه. magacaygu waxa weeyaan hani maanta waxa lagu soo dhaweynayaa dadka oo dhan ciid mubaarak maxamed yaqdaar xidhiidh leedahay waxaan salaamayaa iskuulkayga hooyo aabo waxaan salaamayaa ciid mubaarak dhammaan aad u salaamayaa muslimiinta islaamka meel walba gaar ahaan jamhuuriyadda Somaliland dadka ku nool gobolka Togdheer Hargeysa Uudweyne Kabadheere iyo Ceergabo waxaan kula aad u salaamayaa waalidkay ku nool gobolka Togdheer iyo magaalooyinka kala daafayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Maxamed Saciid Maxamed waxaan halkan marka hore hambalyo munaasabada ciid al-adha darteed uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda ku hadasha afka Soomaaliga ee daawan doonta marka xigta waxaan aad uga hambaleynayaa ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay ilaahay ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo balaade iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan kaloo iyana aan u dirayaa baaq nabadeed beelaha walaalaha ah ee isku haya khasaaraha ku dhex maray magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceergabo waxaan leeyahay idinkana
xilligan xilli dagaal lama joogo xilligii lama joogo burka xilligii toorda lama joogo waa xilligii kamarada iyo qalinka ninkii ciil qabow kamarada ku ciilbax ama qalinka ku ciilbax laakiin xilligii qoriga waa la dhaafay waxaan leeyahay idinkana waxaan inta dhimatayna waxaan ugu waxaan leeyahay ilaahay naxariis weydiinayaa inta ka dhimatayna samir iyo Allah ka siiyo laakiin cid dambeena kama go'do wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay maxaa iskale in soo gaarsiin munaasabaddan ciida dadweynaha reer Soomaaliland munaasabaddan oo kale in ilaahay ku gaarsiiyo sanadka dambe bashbashii barwaaqo waxaan ka sabraayay markii ugu horreysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Islayo marka dambe waxaan islaamka islaamka meel kasta ay ku nool yihiinba mas'uuliyadda وسلام عيد مقعد يبوق يقول أنا كارهان وارد تيجي نقول بعدين سمتي في تايم مركزتا وارد ما سمتها. الرحيم عيد مبارك وحنا كسلام يا دمان عالم الإسلام وحنا كارهان وسلام يا أنت اللغة اللي فاهمين الصومالية وحنا لا عيد مبارك عيد ونكسن هلك وحنا كسلام يا والدكيك هو يدي يوحنا كلو كسلام يا حاسكيك دمان ولهي يدمان أنت كلا عن أصحاب النهاية وحنا لا دمان بعيد ونكسن عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan leeyahay ciid mubaarak ugu horeyn wariyaasha Somali channel waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin maanta ciiday waxaan leeyahay ilaahay xajkii iyo soonkii iyo cibaadadii maalmihii barakaysnaa ilaahay hanaga aqbalo taqabbal Allah baan leeyahay waxaan kaloo gaar ahaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo ah inagu gaarsiiyo sanadada dambe soo socda ilaahay nabadgelyada aynu ku ciidnay waa inagu mahadnaqaynaa ilaahay baa lagu mahadnaqaa nabadgelyo maradaad nabadgelyo ku ciido taqabbal Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka muslimiinta ku ciiday gobolka Togdheer gaar ahaan waxaan salaamayaa xiriirteeda iyo reerkeeda waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Silayo iyo marwadiisa waxaan kala salaamayaa shaqaalaha university soo joogaan waxaan kala salaamayaa adeeradii dalka kala jooga Ingiriiska iyo Suudiga عول محمود محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga intii waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku nool yihiin daafaha ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair sanadkan sanadkiisa ku gaara farxad bashbash iyo barwaaqo waxaan kaloo halkan aad uga hambalyeynaya dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ku sugan daafaha dunida madaxda dalka iyo mas'uuliyiintaba waxaan leeyahay dhammaan reer Buco aad iyo aad baa idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi الله عيد مبارك إن شاء الله dadka muslimiinta oo dhan waxaan leenahay sanadkiisa ciid mubaarak u gaara dhammaantood anigoo asxaabtii Ismaaciil Cabdillaahi waxaan leeyahay in sha Allah sanadkiisa dambe ciid mubaarak ina ku gaadhaan dhammaantiinba